waxaan rabnaa inaan qisooyin taxanaha idinka hadlo insha Allah haddii Allah uu raali ka noqdo. Qisada marka maanta waxay ku saabsan tahay gabar oo hodan ah oo cid boqortooyo maasha Allah dhaqan ka dhalatay ayaa waxay jeclaatay wiil ilaa ku bedela macallimiinta gabadha markay wax dhigata jaamacaddii waxay ka jeclaatay markay gabar ka soo jeeda reer hodan ah ayaa waxay sanadkeedii u dambeeyay jaamacadda ay baratay mid ka mid ah macallimiinta yaryar. jacayl aad u daran ayaana u qaaday akhlaaqdiisa wanaagsan, laasimidiisa daacadda Alle iyo cilmigiisa badan awgood. waxaanay tamaniyay inuu saygeeda noqdo. adduunkii ayaa ku soo yaraaday markuu u cadeeyay inankaasi inuu aad ula dhacsan yahay iyada, uuna doonayo inuu mehersado haddii aanay haysan lahayn duruufaha adduunyo. maxaa yeelay wuxuu hayaa hooyadii oo xanuunsanaysa xilli ay u bilowdeen mushaarkiisa shaqo. waxay ku dhiirigelisay inuu yimaado gabar ay ku jeclaato gabadhaasna adigoo macallin u ah haddana kugu qasabto ama kuwa dhiirigelisa inaad guursato, haddana marxalad kale ee ku haysato oo ah shaqadii oo markii mushaar lagu bilaabay, marxalad saddexaad oo ah hooyada oo xanuunsan oo aad hayso gacanta ku haysid, iyo arooskii kolley waad ognahay inay ku garab istaagi doonto arrin kasta. wuu ku dhiiraday wuxuuna u tagay labadii waalid ee inanta, laakiin way ka diideen dalabkiisii faqrigiisa awgii. kadib gurigii ayuu isaga tegay isagoo murugaysan. gabadhii si degdeg ayay ku fikirtay iyadoo been u sheegtay waalidiinteeda, waxayna ku tiri si qarsoodi ayaan isu guursanay si ay waalidiintu u eegaan arrinta. taas ayaana sababtay inuu aabaheed la hadlo walaalkeed oo taliye ciidan ah kaasoo degan magaalo kale uu ka shaqeeyo. markuu walaalkii ogaaday arrintii si xun buu ugu carooday, mudanihiisii ayuuna ka codsaday fasax hal maalin ah sabab dhibaato qoys oo taagan. markii laga ogolaaday wuu soo laabtay isagoo isla ka aargoosa ninkaas, laakiin maskaxdiisa ayuu isticmaalay. walaashii ayuu la fariistay marka horeba isagoo si degan u wareysanaya, waxaana u sheegtay inuu inankaasi yahay mid akhlaaqdiisu aad u sareyso uuna leeyahay mustaqbal ifaya. way ka ooyday si ay qalbigiisa u jilicsato uuna u garab istaago. wuu u dhoola cadeeyay wuxuuna ka dalbaday nambarka wiilka isagoo u ballan qaaday inuu sameynayo wax kasta oo raaligelinaya iyada, laakiin qalbiga wuxuu ku qarinayaa inuu ka argoosto wiilkaas. wuu wacay wiilkii kaasoo soo dhaweeyay, ogolaadayna inay wada kulmaan. walaalkii baa ka codsaday inuu ugu yimaado meesha uu ka shaqeeyo, taasoo reerkooda ka fog, kulankuna mid degan uu noqdo. wuu aqbalay wuuna wargeliyay hooyadii isagoo dukaday 2 ragco oo mahadnaq Alle ah. sidoo kale hooyadii baa ugu duceysay inuu arrinku u hagaago. kadib wiilkii wuxuu aaday xafiiskii gabadha walaalkeed, kaasoo ka dalbaday mid ka mid ah saaxiibadii inuu garaaco waxyeelana u geysto wiilka inta aanu soo gaarin xafiiska. hase yeeshee waxaa kadis ku noqotay inuu wiilkii oo nabad qaba u yimid, waana soo kolley xafiiskiisa ku balansaday. xafiiskii markuu ku balansadayna kolley rag waxaa jilbaabku jooga ninkan taliyaha ah ama kolley ciidanka ah. ragga saaxiibiisa oo wuxuu dhahay ninkaas hadduu soo galo hala garaaco. alxamdulilah ilaahay mahadiisa cidda Allah subxaana wa tacaala uu talagalo ayaa dhacayo. ninkan markuu soo baxay ayuu salaad shukri ah soo dukaday, ilaahay subxaana wa tacaala ayuu salaad istiqaara soo dukaday. hooyadiis ayuu ilaahay subxaana wa tacaala soo duceysay, dhowrka soo taabatay in ilaahay subxaana wa tacaala maangalna cid bilaadan waxay gaarsiisay. saaxiibkii baa u yimid isagoo u haystay inuu furiyo dalabkii, laakiin wuxuu ku xadgudbay qof kale. wuu ka carooday gabadhii walaalkeed saaxiibkii, wuxuuna bilaabay inuu wiilkii ka wareysto arrinta guurka, laakiin wiilkii wuu ka dhaartay. wuxuuna u sheegay inuuna walaashii u guursan si hoose, maxaa yeelay akhlaaqdiisu uma ogolaanaysa arrinkaas. kadib walaashii buu wacay, waxayna u sheegtay inay iyada alifto xeeladaas beenta. wuu dhoola cadeeyay walaalkii, wuxuuna bilaabay inuu u dabco wiilkan runlowga ah. wuxuuna yidhi, maxaad samaysay oo uu qalbigayga kugu jilcay? dabinkii laguu dhigayna aad uga badbaaday. wiilkii wuu dhoola cadeeyay wuxuuna dhahay, waxuumaan samayn, laakiin hooyaday ayaa ii duceysa salaad kasta. kadib bixinna waxay xasuusisay xadiidkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam ee ahaa, haddii Allah wax loo wadeeca dhiibto waa uu ilaaliyaa. kadibna gacmaha ayay kor u qaadaa waxayna dhahdaa, Allah iyo inankaygaas ayaan kuu wadeeca dhiibtay, sidaas awgeed ayuu Ilaahay iga ilaaliyay dabinta.
gabadha walaalkeed waa uu ooyay wuxuuna yidhi alla maxaan qaldanaa oo aadna ku sarraysay akhlaaqdaada diintaada iyo cilmigaaga waxaad noqon doontaa seedigay taasina sharaf bay ii tahay waxaan ku qancin doonaa reerka oo dhan inaad sharaf noo wada tahay dhabtii guurkii baa dhacay wiilkii hooyadii bay la noolaadeen taasoo aad u jeclaatay xaaska inankeeda. waa walaalkiin axmed oo idin leh aynu dhammaanteen u qalab qaadana ciribtirka caadooyinka xunxun ee isa seejiyey shakhsiyaad isku qalmay la xidid oo gabar siiso inan diinta ku saahiday qoladuu doona ha ahaadee ogow haddaad soo dhowaysato mid jaray xariggii alla subxaanahu wa tacaala inuu adigana maalin dhow qalbigaaga dhaawacayo. muuqaalkan wuxuu sababayaa inaan helno qoysas badan oo qaabsan isku calfaday. waa wacyigelin guude inoo sheer gareeya muslim ah kaasoo doonto inaad si sharaf leh wanaag aad ku siiso u qiimayso qofka hadduu yahay qof ahludiin ah akhlaaq wanaagsan aqoon leh sharaf iyo cizi karaamo leh qofka ilaahay kuma darnaadee lacag ama hanti loo siiyo qof bini aadamna laguma gadan karo waa wax yaro duca ah laakiin ducadaasi haddii sihaysan waxaa la rabaa in la kabo sidii sharci islaamka oo qabo marka waxaan dhihi lahay ummadda badan oo kolley dadkeena ka mid ah